La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada maanta waxaan rabnaa inaan kasoo tuurno doonat yar oo fudud oona soft ah ilmahana cuni karaan qof weyn cuni karo macmacaan fududna ah koobkan waxaa iigu jiro hal galaas oo sokor ah waa koob buuxo halkan waxaa iigu jiro heel shiidan waxaan kaloo isticmaalayaa bakintan waa bakin powder bakinta caadiga ahayd bakin kastoo haysatid isticmaali kartaa sidoo kale waxaan isticmaalayaa 3 xabo ukun ah 3daas xabo ukun aan ku qasayaa waa 3 xabo saa u jeediin koobkan waxaan ku cabiranayaa cabiru ii yahay asiyo qaadadaba waxaan ku cabiranayaa insha Allah caanaha isticmaalaan waa caanahan waa Brookside qofkii haysto uu isticmaali karaa hadaa haysanin caanaha kale waa isticmaali kartaa wax weyn ma aha waxaan kaloo isticmaalayaa Blue Band ama subag buuro saa u taqaaniin waxaan isku geynayaa baaquligan waa baaquligan ku qasan lahaa waxaan ka bilaabayaa hal xabo ukun aan ku ritay tii labaad hadana ku darayaa tan saddexaadna waan ku darayaa saa u jeediin cafwan sidoo kale qoloftii ay igaga dhacday laakiin qaadadaasna waan ku bixinayaa tan weyn gacantaan ku qabanayaa wax weyn ma aha gacmaaga waa nadiif waa isticmaali kartaa markastoo aad wax sameysanaysid waa inaad gacmaha iska dhaqdaa ugu horeyn hadana waxaa xaalad adag ah lagu jiraa gacmo dhaqis xiriga amaba laga hadli karabo meel kasta dhaaq gurigaaga dhaaq waa gacmaha mar waliba marka waxaan garaacayaa ukuntiisi ay isku dhex gasho 3 xabo ukunta ah doonad waxaa waaye micnihiisa ma aha alaabaha aad isku geysanaysid ee micnihiisa waxaa waaye doonad hadaad rabtid qurux badan oo soft ah waa inaad si fiican u qastaa qasitaankaaga ayay ku xiran tahay ukunta waan garaacay afwan aniga meesha ii imaaday ilmiya iska yara buuqaayo oo gurigi wada joogo hooyaal iska yahay waa dareemi kartiin kale hadda waxaan ku darayaa hal koob oo sokor ah cabir ahaan waa kaas koobka shaah oo buuxa waaye sokortaan isticmaalaa aniga waa sokorta guduudan hadaad reer Nairobi aad tahay kole waxaa waaye laguma sheegayo sokortaan maahane wax kale maba helaysidba meeshaan inaa supermarketyada tan cad aad ka heshid ma ahane soo marka doonad wax kastoo haysatid waa u isticmaali kartaa hadaad haysatid cadaan waa isticmaali kartaa hadaad rabtid guduudka waa isticmaali kartaa ma ahan sida keegiyo kale ama buskudkiyo kale oo mararka qaar aad u baahan tahay sokor cad aadan u baahnayn sokor guduud ma aha ay nooc aad haysatid oo sokor ah waad isticmaali kartaa sokorta ukunta isku garaacay hadda waxaan ku darayaa qiyaas hal koobka sokorta aan ku shubtay isticmaala isla asaga oo buuxo oo caanaan ku darayaa insha Allah caanaha isticmaalaan waa idin sheegay waa caanaha bacaysan reer Nairobi aad u yaqaanaan marka qofkii kaloon heli karin caanahan wuxuu isticmaali karaa caano booraha intuu qasto hal koob iyo haaf oo kale ama hal koob qiyaas adi intuu rabo ay ku xiran tahay haddii adiga aad rabtid kiilo waad badsan kartaa famil badan aad tahay haddii aad rabtid wax yar anaga hadda waxaan u rabnaa afurka oo kale inaan ka dhigano macmacaan iska fududna waaye sidoo kalena maasha Allah familkii badan waxaa waaye uu badsanaya familka anagoo kalena way ku filan tahay inta hadda isticmaala laba jibaar un leh ka dhiganaysaa kule ani hadda waxaan rabaa bur nus kiilo ah inaan qasto marka dad kiilo qasanaysid
ukunta 3 waayo waxaan isticmaalaa 6 ka dhiganaysaa caanaha isticmaalaa waa 2 koob koob iyo bar ama koob qiyaas adi waxaad ku darsan doontaa adna 2 koob iyo bar waa enough kiiladi si fiican waa inaad u garaacdaa saan hore idinku sheegay waxaa waaye doonad waa qasitaanka saad u qasta waaye hadduu qasitaanka kaa xumaado kuuma fiicnaanayo haddii qasitaankaaga uu fiican yahay wuu kuu fiicnaanayaa marka waxay ku xiran tahay saad adigu u qasatid waa inaad sokorta si fiican isku dhexgelisaa caanihii iyo ukuntii aad isku dhilaalisaa hadda waxaan sameynayaa ukuntii caanihi is dhexgelinaya si fiican waxaan ku darayaa heel yar heelkii ii shiidnaa in yaroo farisuulan ku darsadaya kuma badinaay haddaa haysatid vanilla waad kaga kaaftoontaa aniga way ii taalaa laakiin waxaan ka jeclahay heelka vanilla waxaan ku jeclahay markaan ku darsanayo kale caanaha cabitaanka juice iyo waxyaabaha sweetiska ah karsanay sidoo kale iyo waxyaabahaasaan ku jeclahay doonadka kuma jeclibo ilaahay amarkiisa mararka qaar xitaa keega kuma darsado waxaan jeclaa inaan ku darsado heelka caadiga oo shiidan hadda waxaan ku shubanayaa koobkaas blue band ima dhalaalsano ama subag buura saa u taqaanid ma dhalaalin waxaan bixinayaa qaado koowaad waa arki doontiin inta qaadoon ku darsanayo that's why ana usoo dhalaalinin aan rabo inaan idin tuso inta qaadoon ka isticmaala qaadada isticmaala waa qaadada yar ma qaadada weyn halaan ku shubay haddana tii labaad hadda waxaan ku darayaa qaadada 3aad waa 3 qaado saas waxaan ku haysto saliid badan uma baahno doonad hadaa rabtid waad ka kaaftantaa aadan heli karin blue band ama buuraha waxaad ku darsan kartaa saliid caadi saliid cadey waa ku darsan kartaa kale oo isticmaali kartaa maaha qasab inaad isticmaashid isla buuro kale ama blue bandkaas raali noqda kaamirada idinkuma aadin microwave kan gashanayay waan soo yara ilaalinaa qiyaasta aan rabana waa idin tusi doonaa markuu ii dhalaalo insha Allah hadana waxaan ku soo noqday inaan qaso si fiican isku dhexgeliyo sokortii wali waxaan meesha ku haystaa sokortii koob sokor ah koob caano ah iyo 3 xabo ukun ay heelkii yaraan haystaa wali si fiican isku dhexgelinaya haddii aad heli kartidna waad isticmaali kartaa mashiinada kale ani hadda waxaan isticmaalaa kii caadiga gacanta aan ku qasanayay mashiinta kale ayadana way ii taalaa laakiin waxaa waaye markastaba shid dhaq bixi waxaasaan iska dhibsanaa ilaa amarkiis waxaa waaye shaqo fududaan iska jecelnaa Soomaali haddaan nahay marka hadda si fiican isku dhex gashay waad u jeedaa indhay yeelatay saan u garaacaye haddaad haysatid mashiinta kale midoo gacanta lagu qabto breeska ah waad isticmaali kartaa ku qasan kartaa haddaad haysatid kan caadi keega loogu talagalay asna oo fadhiga leh waad isticmaali kartaa haddaadan haysanin kan waa isticmaali kartaa qiyaasta aan ka rabay 3 koob waa halkaas bakeeriga dhigtiisa hoose joogtaa wax yar dhaafsan tahay marka intaas ka badan oo saliid ha ku darsan xitaa haddii aad saliid isticmaalaysid haddii aad suuq isticmaalaysan 3daas qaado dhilaalsanaysa oo qaadada yar ah kadibna waad isticmaalaysaa qaadada weyn ma aha waa qaadada shaaha mid yar mid cuntada ma aha waxaan ku darsanayaa isla qaadadii suuq aan ku isticmaalaya yariista aan isticmaalaya waxaan ku darsanayaa baking powder waaye waxa meesha ku jiro waa idin tusay baking inay ku qorneed waa qaado buuxdo baking ah waa mid yar qaadana isticmaala qaadada weyn ma aha dana waa inaad qastaa bakinta waxaad ku darsanaysaa xiliga adiga si fiican inay kugu qasmeen sokortii ay dhalaashay aad dareemaysid oo wax sokor ah meesha fadhin aad bakinta ku daraysaa
bakinta mar haddaad ku darto burka waad ku daree waa diyaar. burkii un baa kuu harsan markaas. mida kale waxba ha ka cabsanina, bakinta waa ujeediin weli si fiican uma dhexgalin, kuma dhalaalin zaaid, laakiin inta burka aan qasaayo oo ku dhalaalinayo ayadan ku dhalaaleysaa insha allah. hadda waxaan furanayaa nus kiiladii burka ahayd. waxaan ku darayaa burkii haaf weeraa ku haray, ma wada dhammayn. wuu yaro culasaanaya markaa qasaysid, gacanta sidii hore uma khafiif noqonayso. dadaa jiro ayagana iska neceb intaas yar, laakiin ani kanaanba iska jeclahay, si dhaqsi ah waxaaba isku dhex gashanaysaa. dhaqdhaqitaan iyo kala furfur, makiinada ka bixi afka hore iyo kii weelka ku qasanaysa goona u bixi iyo baaquliga dhaqi, waxaas ma gali karaa islaha. mararka qaar kan keliyaan ka jeclaa inaan isticmaalo. intii hartay burka waan ku darsanayaa, waa ujeediin nuskiiladii saasay noogu dhammaatay. waxaan dareemayaa inay yara adag tahay. waxaan ku darayaa caanihii. caanahan waa ayada naftirkeed nuskiilo waaye. hadda waxaan ka isticmaalay hal koob, haaf kasta yaraan ku darsaday, baas marka way ku filnaan insha allah. caano kale kuma celin doonin. intaana si fiican isku dhex gelinayaa. saan idin sheegay donut haddaad rabtid oo qurux badan oo soft ah waa inaad si fiican aada u qastaa oo isdhexgelisaa insha allah. waxaan isku dayaa xitaa burka inta kuuskuus yaryar uu leeyahay inaan baabi'iyo. waqtigay qaadanaysaa laakiin waan dadaalayaa insha allah. kuuskuuska yaryar waqtiguu qaadanaya intuu dhammaado, laakiin kulama burkaaga inta aad sii duwaysid hore inta dambe way sii dhexgalaysaa, oo kuusii fiicnaan. ujeediin waan dadaalayaa weli inaan ka baabi'iyaan rabaa. maasha allah. hadda waxaa waaye qiyaasta waad ujeediin sida u jilcan yahay, waa sidii keegii oo kale. saad ku celinaysid biyo kama badinaysid mana adkeynaysid. waxaa waaye waa inaad ka dhigtaa qiyaasta keegii oo kale. inuu zaaid kaaga jilcana lama rabo, inuu kaa adkaadana lama rabo. waa ujeediin hadda si fiican uu isku dhex galay. qiyaastan waa qiyaasta keega ama dooshada. hadeer waa diyaar. waan dadaalay. burka hadday kuuskuus badanuu lahaa waa ujeediin, kuuskii waan ka baabi'iyey. waxaan isticmaalayaa bacdaas. bacda waa bacdi keega, laakiin waxaan ku shubanayaa doonetka daftirkiisa waa keeg walaalkiisa un ama walaashiisa, kama fogo. waxaan ku shubanayaa bacda. markaad keli tahay waa saas, waxaad iskaga baahan tahay in lagu saacido. bacdan ku shubayaa, waad ujeediin saasaad ugu shubanaysaa. waxaan dhexgeliyey koob. bacda haddaan ku shubo afkaan ka yaro qabana waa isku soo noqoneynaa. asxaabey waa isku soo laabanay, waad ujeedaan. hadda birtiaan dabka saartay oo bareeskiaan geliyey. birtaan waxaan loo isticmaalaa bareeskaan geliyey. bareesku ii shidan yahay, way yaro kulaatay. waxaan bilaabayaa inaan ku shubo. non-stick waaye, ma qabsanayso, laakiin wax yaroo saliid aad inaa iska marisid waa muhiim. waxaan ku shubanaynaa godkii u horeeyay doonadkeena.
waa inaad yara dhadhoweysaa, hadhow ayada iska soo barari doonto. birtu way kulushahay, waxay bilaabaysaa inay karto, way soo yara kacay sidii keegii oo kale ama doolshadii. godka labaad aan ku shubanayaa. birtan waxay leedahay 12 god, halkii mar waxay ku qaaday 12 xabo, waxaan kaaga soo bixis 12 xabo oo donut ah. waxaan idin tusayaa qaybta ugu horeyso sidaan ugu shubayo, waa ujeediin. donutkan wax badan oo ka anfacaya ilmaha iskuul haday ku dhiganayaan oo kale, subaxdii kale intaad u sameysid ama habeenkii. waxaa waay 1 iyo 2 waay, wax yaroo fudud aad kasoo tuuranaysid waaye, kuma sii dhibaayo zaid. marka waxaad sameynaysaa inta ilmaha canjeerada u karinaysid ama habeenkii ugu dambeyn inta cashada markaas siido intaadan seexanin, wax yarood uga tuuran kartaa. subaxdiina baaga u gelinaysaa si ay breakfast ama snacks waxaas ay ugu dhigtaan. waaye ama mararka qaar oo kale asxaabada ku imaanayso, waa wax yaroo fudud aad kasoo tuuranaysid, aan saas ku sii dhibeynin. within 10 minutes waa diyaar. hadda waxaan ku shubanayaa godkii shanaad. 4 hore waan ku shubay, bacdan way ku sahlinaysaa inaad ku shubtid, haddii kala qaadada meel kasta kaaga halaabay. hadda waa ujeedin anoo bacdi isticmaalaya, wax yar yara gaarayaan. marka waa muhiim qofkii oo heli karana bacda kala caadiga xitaa ku shuban kartaa, inta afka yar ka duleelisid sidii cilaankii waagi la saari jira ama waad isticmaali kartaa. inaa isdibtid ma ahan walaahi, wax kastoo adig gurigaaga yaalo oo heli kartid waad isticmaali kartaa, wax weyn ma aha. hadaad rabtid qaadadaadaad ku shubanay oo ku isticmaale, hadhown waad iska tirtireysaa inta yaroo meesha kaa gaartay, wax weyn saas ma aha. insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontiin. wax walba waa isku day, qofkii hore u yaqaanay wuu yaqaan, qofkii aqoonin waxaad isku day. insha allah wuu baran doonaa, wuuna ka faa'iidi doonaa. wax saas u adag ma aha, waa wax qof walba sameysan karo, gurigaa ku sameysan kartid. hadaad doonto xitaa keeg waa ugu maarmi kartaa, biskud waad ugu maarmi kartaa, casari yar waa ka dhigan kartaa. subaxdii hore daarabtid waxaad ku cabi kartaa qaxwadaada. ilmaha sidoo kale way ku cuni karaan, waana fitamiin, way ku kubcayaan ilmaha. waxyaabaha ukunta badan loogu daro, caanaha, waxyaabahaas ilmaha way kula korinayaan. ugu dambeyn waan ku shubtay, birtaydi waa soo shitay, waa ujeediin. birta markay guduudi cagaar saasay tahay way shidan tahay, waa micnaha. marka dambe cagaarka wuu dami doonaa, waa ila arki doontiin. waan soo damiyey, waxaan ka baxsanaynaa donutkeeni, waa arki doonaa siduu kusoo baxo. wow, cajiib, maasha allah, tabaaraka allah. sidaasuu noogu soo baxay oo quruxda badan. waa color brown, waa ujeediin. kule waa lagama sheekeyn karo macaankiisana. aaduna soft u yahay markuu saan kuu noqdo, markaasu mana adkayn, qiyaas fiican aan ka dhiganay. waa doorsho adoo cunaysid waxba kama baryaysidbo, waana wax yaroo qurux badan. maasha allah. intii haysato ilaah u zaa-idiyo, intaa haysanin ilaaha siiyo. aan isku soo daceyno dhammaan. aadaad u mahadsantihiin, soo dhadhawaada. ugu dambeyn saanuu noogu soo baxay quruxda badan aa ujeediin. insha allah kheyra.